بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي في أنواع من الناس waxaan faalla ka dhiibayaa maanta ka bixinayaa dadka qayb ka mida qaybo ay kala yihiin dadku oo dad badan oo aad fahmi doontaan markaad dhegaysataan aad ka dhex arki doontaan ilaahay idamkiisa. xalaqadan dadka ku saabsan ama ka hadlaysa waxaa dadka ka mida qof aad wax kasta oo aad u qabatid u iibisid aad ku kormarinaysid sharaftiisa adiga ku baaciya nahayada si kasta oo aad ugu soo dhawaatidna oo aad muhiimad u siisid dhawaanshihiisa iyo garabsiintiisaba abcaduuk adiga waa kaa sii jeesanayaan waa kaa sii fogaanayaan. si kasta oo aad u ilaalisid axsaaskooda adiga way ku jarxayaan. si kasta oo aad u kor yeeshid sha'nigooda inaad kor u qaadidna way ku xaqirayaan. si kasta oo aad u ixtiraamtidna waa kugu istahzi'ayaan waa ku yaraysanayaan oo ku macnaha waa ku dullaynayaan macnaha waa waxa oo aan waxba ahayn bay kaa soo qaadayaan. si kasta dadkaas marka noocaas ah maa raaxa yacrifuun fiika ilaa idaa khasaruuk ma ku garan doonaan ama ma garan doonaan qiimaha adiga aad leedahay ilaa aad gacantooda ka baxdid ama ay ku khasiraan oo ku waayaan. marka nacuudu billaahi min ashaytaan arajiim. dadka noocaasa ilaahay baynu ka magangelaynaa inuusan ilaahay uusan inala kulmin. waa dadka ku jira weeye. bini aadamkuna wax badan noocyo badan buu u kala baxaa. ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay dembigeenna kii waaridkeen dhaafo. waxa aynu ku hadlayno ama aynu isu sheegaynana ilaahay ha ka yeelo aynu ku cilmi qaadanno. ilaahay dadka ummadda inta aynu ka soka marsanayno inta aynu wax u qabanayno inta aynu wanaagga la jecelnahay ilaahay iyagana in sidaas oo kale ha ka yeelo. quluubteenna iyo tan islaamkana allah isu soo jeediyo. walaalayaal, marka xalaqadaydii aan maanta axsaasu naas aan kaga hadlayey intaas ayaan ku soo koobayaa waana idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.